annagoo ah National Flour Mill Company waxaanu idin soo saarnay daqiiqda alwataniya waana mid diraali gelin doonta BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا وراركا تلفزيون كبولشو ويدين كجيمانا يا استوديو دحيو تي في كله يهي مقالة هرقيسة هدي الله ودل وقلادنا وركا واحد لسعودسين دونا أنا محمد داق اسماعيل حاشي قدبدا وركا كداون دونتانا داوديال وحكام دا مقالة جيبوتي حرونت دلك جيبوتي أيامانتا واحد سر رسمي وقفر مي شركي ودا هدلد الصومالي لان يا صوماليا magaalada Hargeysa ayaa waxa soo gaadhay laba diyaaradood oo loogu talagalay in lagu buufiyo ayaxa dalka ku habsaday siyaasi Jaamac Shabeel ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay lacag ku doonayso wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya xukuumadda dalka Yemen ayaa sheegtay in xoogagii koonfurta Yemen ay ka baxeen heshiis ay hore wada galeen waa tahay daawadayaal kuwaasi waxay haayeen qodobada ugu doorka roon wararka iyaga iminkana u diyaar garooba wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirkii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxa inoo haya Cabdiqani Baylood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa safar ugu baxay dalka Nigeria ee Djibouti halkaas ay ka qayb geli doonaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya oo la finayo inay isla maanta ay ka bilaabato dalkaasi Djibouti waxaana wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya qayb ka ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle iyo qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka oo badan ee daneeyaasha labadaasi wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya كانوا وفتي كما بحنا قران كديارته مقالده هرقيسا waxa warbaahinta faafayn ka siiyay Professor Yaasin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland halkan soo taagay inaan idin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waftigaas wuxuu baxayaa dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan Ismaaciil oo ah la taliye xagga aqoonsaraadka jamhuuriyadda Soomaaliland waftigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dawladda ama dalka Itoobiya waftigaas waxa la isugu keenayaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ujeedada shirku waa intaas ajandihiisa iyo waxa laga wada hadli doono iyo arrimahaas marka la isu tago baa laga wada hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha Allahna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhamaado
intaas baan idin sheegayaa si kastaba ha ahaatee markii ugu horeysay ay kulan foolka fool ay isku soo fadhiistaan madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaasina mid kasta uu ku soo bandhigayo tabashadiisa goobjoogna ay ka yihiin daneeyaasha labadaasi wadan نجيب عبد الله تلفزيون عالمي بولشو من قلة الكيسة وفتي صدق جيسود أو ساكا كلا كعتمة دلك الصومالية إثيوبيا سوماليلاند أي دمان تدو حي قارين دلك تشبوتي وهالك وكقب سومي دونو كلن كدحمل دونو سوماليلاند يوصوماليا جوبشون كأي كن قندونا قيبة كم إذا بيش عالم كو إذا مركز هنا مرتجلي سيد دلك تشبوتي وحنا وفود كسوق كلا كعتمة صدق عدنا مركي أي قارين قرون كديار ضها دلك عسي تشبوتي هالك عسي سيوسكم يقام وجسود ويجي رئيس وزراء دلك عسي تشبوتي مدن عبد قادر كامل محمد ويوهلين وزير كاريمها دبد درك جبوتي محمود علي يوسف iyo wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha mudane maxamed muuse cawaale maxamed Soomaali iyo waliba safiirada Djibouti u fadhiya saddexda dhinac intaas kadibna waxa haata si toos ah u furmay shirkani oo dhammaan bay u dhan yihiin labada dhinac iyo dhammaanba goobjoogayaasha loogu talagalay madashaasi walow ay warbaahintu dib u joog ka tahay waqtigan balse waxa waqtigan si toos ah uga socda gudaha dalka Djibouti khaasatan goobta loo aasteeyay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Cabdiqani Xuseen Abubakar Cabdiqani Baylod بولشة تي في مدارك عالمي جاه عقال انترناشنال ايربورت مجالده هرجيسا ayaa maanta waxa si rasmi ah u soo cagadhigtay laba diyaaradood oo loogu talagalay in lagu boofiyo ay xadalka ku habsaday Nagiib Cabdilaahi Colaad ayaa faafaynta warkaasi inoo sii anba qaadaya cigal international airport ayaa waxa soo garay laba helicopter oo wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ugu talagashay la dagaalanka ayaha wareenalkaasi waxa ka hadlay mas'uulku hadlay afka hay'adda FAO waxaana yiri halkan aanu ku soo dhaweyno bayloodadii iyo diyaaradihii muddada laga wada shaqeynayay FAO iyo wasaaradda beeraha Soomaaliland oo wasiirka hogaaminayo waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta dhibaatada ballaaran ee heer caalami iyo gobolkaba ka jirta iyo wadankaba oo si fidaysa oo qayl dhaankii uu meel walba gaadhay inaanay ku filnayn kaliya gaadiid iyo qalabkii lagu rakibayay kaliya oo imika shaqeynaya gobolada oo ay wasaaraddu hormood ka tahay waxaan ku faraxsanahay maanta in dayuuradihii ay iyaguna inoo soo cagadhigteen FAO-na ka soo jawaabtay codsigii wasiirka wasaaradda beeraha oo wasiirku hormeed ka yahay agaasiimiinay nala jooga maanta waxa kale oo farxad weyna in maanta dalaga xagga hadday noqoto baad iyo hadday noqoto beeraba uuna bahalkaasi waxba reebayn ayaxaasi sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Moomin Saad waxaana uu sheegay in wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mar walba ay ka howlan tahay sida ay beeraleyda uga buufin lahayd ayaha waxaad arkaysaa runtii diyaarado helicopter oo laba xabo oo maanta xaggan taagan diyaaradaasi runtii waa diyaaradii aan kula dagaalamayna ayaxa inta badan ban haystay oo runtii aan marka hore ku sii dagaalamaynay gaadiid lix baabuura oo aan hay'adda FAO iyo USA naga caawiyeen taasoo runtii aan ku sii meel gaadhaynay ilaa bal intaan helayno diyaaradaas waqti badan runtii aniga agaasimayga guud iyo wasaaradda iyo FAO oo runtii maxamed jaamac iyo region kaba runtii aad ay noola hawlgaleen runtii aad iyo aad hay'adda FAO ugu mahadcelinayo runtii waqti badan bay qaadatay in diyaaradu halka soo gaadhaan taasina waxa weeyaan nin walba uu garan karaa runtii shay kasta hadii la doonayo wuxuu leeyahay caqabado ama waqti badan time badan bay qaadanaysaa laakiin maanta ilaahay mahadii bayloodadii bay noo jooga diyaaradihii bay noo jooga waqti wanaagsan oo kooban oo intaan ku gangaaraynaa inaanu ayaxa tirtirno ay muddo badan bay nala joogi doonaan waxay isticmaali doonaan madaarada Boorama Hargeysa burco iyadoo aanu la ka berbera oo iyadoo la kaashan doono maariyaha guud ee madaarada Soomaaliland oo dhan Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Radal oo la kaashanayno darayaa baaq shacabka reer Soomaaliland ku hawlan dhiga beerleyda
helicopterkan ama diyaaradahan waxay ku duuli doonaan joog hoose ayay ku duulayaan marka waxaan oo ay ku socdaan si ay ayaxa ula dagaalamaan marka waxaan u sheegaynaa shacabka meel kasta joogaan inay meelaha ay diyaaradu buufinayaan oo calaamad aan u samayn doono inay kala fogaadaan xoolaha caruurta inay ka fogeeyaan baan runtii kula dardaarmaynaa waxaan kula dardaarmaynaa ciidamada amniga ee Soomaaliland meel kasta joogaan inay amnigeega ilaalin doonaan diyaaradaha joogga hoose ku duulaya waayo waxa laga yaabaa in joogga aad buu hooseyn doonaa waayo waxay dabaylahan darteed iyo muxuu ahaayay iyagoo la dagaalanka ay darteedba iyo koronkorta waxaan la dagaalamaynaaba joogga aad buu hooseyn doonaa maadaama joogga hooseynayo waxaanu shacbiga uga digaynaa oo aan ku wacyigelinaynaa iyadoo wacyigelinta bari aanu samayn doono sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland waxa uu meesha ka saaray inay diyaaradahan ay yihiin kuwii hore uga soo buufiyay dawladda federaalka Soomaaliya diyaaradu waa diyaarado bareefada oo shirkado gaar ah iska leeyihiin anigu heshiis gaar ah anagu la galnay anigoo oo nooga wakiilay waliba USAID oo lacagta naga bixisay iyo hay'adda FOW ay nooga wakiiliyeen ayaan heshiis rasmi ah la galnay waana shirkad gaar ah haday u shaqo tagaan Kenya iyo haday Ethiopia tagaan iyo haday Soomaaliya tagaanba xaq u leeyihiin laakiin anagu heshiis gaar ah oo Soomaaliland aan la galnay si toos ah maanta noogu yimaado نجيب عبد الله تلفزيون عالمي bulsho magaalada Hargeysa xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba ayaa ka hadlay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Djibouti Umar Shabash ayaa faafaynta warkaasi inoo sii ambaqaadaya xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo telefishinka bulsho magaalada Hargeysa wareysi ku siiyay waxa uu ka hadlay wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee saaka ka baxay dalka Soomaaliland kuwaas oo ka qayb galay wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ka furmay dalka Djibouti waxaana xildhibaanka hadaladiisii ka mid ahaa runtii wafdi culus baa saaka ka baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale Soomaaliyana waxa ka soo baxay wafdi culus oo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba ay hogaaminayaan ay ku jiraan sidoo kale Ethiopia iyadana waxa ka soo baxay ra'iisul wasaarihi Ethiopia iyo wafdi hogaaminayo waxay u muuqataa intii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya socdeen wafdi ugu cuslayd inay ku kulmayaan Djibouti maanta waxaana muuqata inay ka duwan tahay joogiyadii hore ee ay ku kulmi jireen wada hadalladii ama gudiyadii wada hadallada ee labada dhinac ka kala socon jiray waxa muuqata in culays xoog leh la saaray tripkan ama waqtigan maanta shirkan isaga ah sida loo soo abaabulay loo soo aloosay waxa muuqata waliba in ay gudiyo farsamo jireen oo shirkan intaanu dhicin ka hor qaban qaabo iyo diyaar garow fara badan waday waana tag dhalisay in sida baaxadda leh uu qabsoomo shirka isagii waxaan qabaa maanta inay fursad weyn u tahay Soomaaliland oo madaxda isugu timid mandaqada geeska Afrika ee Djibouti iyo Ethiopia iyo beesha caalamka oo dawladda Mareykanka iyo wadamo kale oo Jaamacadda Carabta ka mid tahay ay wufuud soo dirsadeen sidoo kale midowga Afrika ay wufuud soo dirsadeen United Nations oo iyada laftirkeeda cid ka joogto wufuud soo dirsatay aanay muujinayso chance u tahay Soomaaliland meel ay ku ganacsan karto ay ku dhiiban karto fikirkeeda iyo muwaadideeda iyo go'aamadeeda masiiriga sida daraadeed waxaan u rajaynayaa wafdiga maanta aan baxay in arrimaha ay u tageen ay ka soo hoyin doonaan insha Allah guul fiican oo Soomaaliland u cuntamaysa mujtamaceeda iyo bulshadeeda muddada sanadka 30 sano ku dhow dawladnimadooda iyo gunstaagooda dhisay institutionadooda iyo hay'adahooda dawliga ahna dhameystirtay waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ka daba qeylinaya ama mucaaradaya waftiga baxay iyo kulanka maanta Djibouti ka dhacay ee wufuudda culus ee beesha caalamka iyo mandaqada geeska Afrika wadamada ka tirsanaba ay isugu imanayaan inay ka daayaan waayo chance-kan oo kale Soomaaliland marnaba ma helin marnaba ma soo marin waa chance-kii ugu horeeyay ee beesha caalamka iyo wadamada bariga Afrika iyo midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta ay dhammaan goobjoog ka wada ahaadaan labadii qolo ama Soomaaliland iyo Soomaaliya oo doodoodii iyo wada hadalladoodii
iyo go'aamadoodii qol walba miiska soo saarayso waxaan u rajaynayaa wax ummadda Soomaaliland oo cuntaba oo khayr leh inuu uga soo baxo halkaa midna waan u sheegay reer Soomaaliland waxaan leeyahay waana ku kalsoonaataan waftiga baaxadda leh ee matalaya Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aynu garanayno inuu kamid ahaa mujaahidiintii waddankan u soo halgamay inay maanta shaki laga muujiyo ama calaamad su'aal dulliga dadka qaarkood si hadalka u dhigayaan kulanka waxa uu la tagayo waxaan leeyahay ma qabato meeshana ma taalo marka waxaan leeyahay kalsooni buura wana siisaan waxay kala yimaadeenna waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo wax khayr leh oo mid reer Soomaaliland dhan u cuntaba midna waan u sheegayaa waftiga amba baxay ee reer Soomaaliland waxaan leeyahay wixii kala kulantaan meesha ummadiina ina sidee tahay ugu soo bandhigtaan baa loo baahay ma hayna wax qarsataan hore loo Soomaalidu ugu mahmaado tiri nin hagoog xun inuu nin hilaab xun inuu qarsanaya la moodaa waxa ku qurux badan tahay oo ku wanaagsan tahay ummadda reer Soomaaliland iyo aqoonyahankeeda iyo dhalinyaradeeda iyo waayeelkeeda iyo mujaahidiintii dalkan u soo halgamay bana u cuntamaysa wixii aad ku wada hadasheen la tagteen inaad ummadiina aydan ka qaran miiska u soo saartaan Mara Ali Ducaale Marshbash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo maamulkiisa ay u aqoonsan tahay madaxweyne ku meel gaar isla markaasina muddaxileedkeedu uu ku eeg yahay bay yiraahdeen 2 sano oo kaliya taa oo war saxaafadeed ka soo baxay filla Soomaaliya oo nuqul ka mid uu soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishinka bulsho ayaa waxa uu dhignaa sida tan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ka duuleysa go'aankii wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya dib u heshiisiinta kaasoo ay ku cadaysay baa la yiri inaysan aqoonsanayn natiijada ka soo baxday doorashooyinkii Jubbaland ee hareer marsanaa baa la yiri habraaca saxda ah ee ay dejisay wasaaradda arrimaha gudaha kana hor imaanaya baa leeyahay dastuurka Jubbaland iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya tixgelinaysa baa leeyahay mowqifka cad ee beesha caalamka ee ku aadan inay lama maarmaan tahay inay dhacdo doorasho la isku raacsan yahay isla markaasina la isku hadlayn karo haysatana baa leeyahay taageerada dadka Jubbaland oo dhan oo horseedi karta midnimo ay u dhan yihiin bulshada Jubbaland laguna duray baa lagu yiri sax ahaanshaha doorashadii dhacday haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xuntahay faragelinta qaawan ee dowladda Kenya ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland taasi oo doonaysa baa la yiri inay cadaadis siyaasadeed uga dhigato baa la yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya siday danaheeda uga gaarto qadiyada lagu muransan yahay ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya dowladda federaalka oo garowsan baa la yiri baahiyaha loo qabo in la helo maamul ay heshiis ku yihiin baa la yiri dhammaan dadka deegaanka Jubbaland ayna lagama maarmaan in la soo afjaro khilaafka soo jiitay inta muddada ah waxay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aanada hoos ku xusan kow dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mudane Axmed Maxamed Islaam ay u aqoonsan tahay madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ah ee Jubbaland laba muddaxileedka maamulka ku meel gaarka ah ee Jubbaland waa 2 sano oo ka bilaabmaya baa la yiri xilligii uu dhamaaday muddaxileedkii u dambeeyay ee madaxweynaha haatan 3 waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam inuu fidiyo gogol ay isugu yimaadaan baa la yiri dhammaan dadkii ku kala aragtida duwanaa khilaafkii ka dhashay baa la yiri doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland si loo yagleelo Jubbaland midaysan isla markaasina loo dhan yahay ayna ka dhacdo doorasho waafaqsan dastuurka Jubbaland iyo kan federaalka ee Soomaaliya lambar 4 dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay mar walba u taagan tahay ilaalinta daraha qaranka midnimada shacabkeeda iyo wadajirka baa la yiri dhulkeeda iyo badeedaba ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiqani Xuseen Abkar Cabdiqani Bayood wararka bulsho TV madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii ballaarnaa uu hogaaminayay oo maanta gaaray caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti ee waddankaasi Djibouti ayaa ka qayb galay kulan afargeesood ah oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee waddankaasi Djibouti isla markaasina ay goobjoog ka ahaayeen dawladaha Mareykanka ururka midowga Afrika xogayaha urur goboleedka IGAD iyo marti sharaf kale oo tiro badan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa oo garnaqsi ah ayaa ku dheeraaday taariikhda faca weyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladnimadeeda waxaana uu si cad u qeexay dimuqraadiyadda buuxda iyo hanaanka dawladnimo ee daaha furan ee ay ku caanabaashay Soomaaliland nabadda iyo xasiloonida ay ku naaloonayaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland
iyo dib ula soo noqoshadii gobonnimadii halowday ee 60kii oo haatan dib ula soo noqoshadeedii laga joogo muddo ku dhow 30 sano madaxweynuhu waxa hoosta ka xariiqay kana sheegay shirkaasi maanta isku yimaadeen madaxda dalalka geeska Afrika iyo ufuuta kale ee dunidu in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu muddo sanado ah u soo dhabar adeegayay in mar uun ay beesha caalamka iyo Afrikaba ay garowsato horumarka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland in badan ay dhagta u taagasay inay maqasho waxay shacbiga Soomaaliland ay ka mudan yihiin dunida kale xaqna ay u leeyihiin oo ah aqoonsi buuxa muddo badan ay suugasay madal sidana kale u furan oo ay aragtideeda iyo xuquuqdeeda ay ku sheegato ugu dambeyntiina madaxweynayaasha dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa ay xarunta madaxtooyada ee dalka Djibouti si wada jir ah ugu beereen geed lagu magac daray nabadda geeska Afrika Nagib Abdullaahi Holaad telefishinka caalamiga ee bulsho siyaasi jaamac Shabeel ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay dhaqaale ku doonayso wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti Maxamed Yuusuf Imaan ayaa faafahinta warkaasi inoo haya iyadoo maanta uu si rasmi ah dalka Djibouti uga furmay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo ay dhexdhexaadinayso beesha caalamku ayaa arintaasi waxa ka soo horjeestay siyaasi jaamac Shabeel isagoo siyaasigu sheegay in shirkaasi aanay jirin wax dana oo ugu tirta Soomaaliland siyaasi jaamac Shabeel oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay in sababta uu shirkaasi uga qayb galay ay tahay sidii uu dhaqaale uga heli lahaa waa sidoo hadalka u dhigay isu imanaya wax ka wada hadlaya ma isu soo dhawaan karaan maxay isugu iman karaan maxay isu khilaafsan yihiin maxay isla ogol yihiin wax isku diidan waynu jiraa labada nin ee meesha isugu tagay mid walba kitaab muqaddas leeyahay qoorta loo suro shicibkiisa soo sure kiba ka yimi kitaabkii su'aal ma farmaajo kitaabkii ka yimi وحمد كريم أو لما أنتوا الاعتراف يا سومالا وموسى هلك كتير كتابكي ولو كتلاسيليا متكون ناس أود مولي هوا تعرضي فرمات أود مولي الأول القصة سومالا موسى أود مولي يلو إلى هذا وكتلاسيل سومالا waxa lagu wada hadlay meesha isku tagay waa been nimanka meesha isku tagayna waa beenawaas si abnawaas aad baa loo yaqaan sheekadooda tigiya dambas bay kala iibsanayaan tigiya dambas ay kala iibsanayaan farmaajo wuxuu waa kaambay buu ka dhigayba idaacadiisi raay xamar waxay ku hadlayeen wadiyaysa موسى عسيلية فرمات روح نقوليا تيرم الواد مدحوين نقوليا هم البرايم مستر بالقديقيا ورقوية حلوة ليا بواحد درؤية مع العروض لو شيء كم بيكون لي موسى لا وكيف يصير شيء عجب الله له باش العك تلاد بتشعلي هو الوذوق له عجب الله له عد كيف يسلي قال ومن نقول حبوا يلو شيء كله وورك كله وريت تاير اللو سوق هذا يربح هالك كل يكسر حجاه أنت صاحب الماضي أنت سوق هذا ويلورك كله أنت يسلي قال وعلى الله حكوا شيء كي شليته أنت ربح الحسب ذو شيء كي وحلو قصة هذا عروض أي قصة عروض لا لو شيء كي يماموتا لساري برشر ساري يماموتا عيك يماموتا بحولي هرت يماموتو بعات بلا قرار يلوى حو برشر لساري وحلوة سفير كبريه كم ميلها فرديه تشوقه وبحي لك لها الدنيا دونالد ترامب قد يدين وحبك بدل الكريم كثير وقت شاكين يوم إنا يروشق علوه ماشي تشوقه دونالد ترامب يعني قد يدي لحبك بدل الكريم وقوان أمداد وحلي وهم قري وحمو سودا وحكروا ذا بتشلو والعكتاير اللو شيء أيسليه قالوا صوتها
farmaajona wuxuu u socdaa waa inuu been ka iibiyo soomaaliya inuu been ka iibiyo soomaaliya uu yidhaahdo somalilan baa taadishao uu kambeynka ku galo idaacadiisii yar anuu akhriyayaba imika wixii dhanka kale waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inayna daacad ka ahayn wadahadalada u dhaxeeya labada dhinac farmaajona wuxuu u socdaa waa inuu been ka iibiyo soomaaliya inuu been ka iibiyo soomaaliya uu yidhaahdo somalilan baa taadishao uu kambeynka ku galo idaacadiisii yar anuu akhriyayaba imika wixii horta waxa baaqda waxa weeye waxa wadahadalka raadhiis kale ee rajada laga qabo ee mustaqbalka laga doonayo farmaajo markii uu meesha yimi wixii heshiis sheekh shariif galayna wuu tuure wixii uu xasan sheekh galayna wuu tuure ee Soomaaliland la galay wuxuu isagu gelayaana maba jiro heshiis wuxuu Soomaaliland la gelayaa oo heshiisina maba jiro been buu doonayay inuu ka iibiyo bacil qolada reer Soomaaliya odayga Ismaaciil Cumar Geelana way xijinayaan ilaa 19 ilaa xasan guuleed bay leeyihiin marba shir loo qabo waxba ku heshiinaysaa haa waxba waan heshiinay shir loo qabo boqol shir buu qabtay waxa la yaalo wax ka naas cadira oo guulo laga gaarayo ma jiro warada si wada Soomaaliyeed la xijin la leen iska daayay wax xijinine ilaa 19 ba ku sii socota Djibouti wax kasta idin la qabatay waa socon kari laadihiin hadeen halusnaa xijin iska daayay beenta ay kala iibsanaysan iska daayay oo xaqiiqo ku noolaada Soomaaliland waa xaqiiqo jirta ilaahay baa ictiraaf uga baahantay bilaad ictiraaf uga baahan ninka wax la qabsanaynin waa yeelkii ninka wax la qabsanayaan waa welcome Maxamed Yuusuf Iimaan Bulsha TV Hargeysa xildhibaan Maxamuud Axmed Obsi oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland wuxuu ka hadlay fasaxa ay ku jiraan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland jeenaya horta de waxa weeye golahu sidaad ula socotaan fasaxiisu wuxuu ku ekaa bishan aakhirkeeda bishii tagtay awalkeedana in la soo galo asay yeeshay markii dambe waxa la kordhina lama oran karo ama fasax kale waxa weeye waa la yara muxuu ahaa muddo yar baa la siiyay sidana lagu soo gaarsiiyay haddana maalintii sabtida ahayd ee muxuu ahaa sabtida dhaweyd waa la kulmay oo gudoomiyihii uu isku yeeray gudoomiyaasha tobanka guddi si ay uga wada hadlaan waxyaabaha hor yaalla iyo waajibaadkoodii waxaana la isla gartay in guddi walba uu shaqadii uu qabanayay sidiisii uu qabto oo de hawlihii ay qabanayeen iyo wixii mandate-ka u lahaayeen ay muxuu ahaa ka shaqeeyaan isla markaana de wixii de ama ha noqoto cabashooyin ka timaada dadweynaha inay qaabilaan waxyaabihii wasaaradihii iyo shaqadoodiina sidii loo shaqeyn jiray loo shaqeeyo taasi waa la isla afkartay laga bilaabo beri ilaa saad dambe waxa dhici karta inay golayaashu ama gudiyadu ay shaqadooda bilaabaan waxa intaa si dheer goloweynaha oo shaqooyin fara badan u yaalaan isagana waa jirtaa way ka mid tahay xeerarkii la ansixin lahaa ay ka mid tahay muxuu ahaa xubnihii la ansixin lahaa iyo wasiiradii lala kulmi lahaa si guud waxaasna waxa weeye dee waxa weeye waa loo ballansan yahay in go'aan laga qaato haddii ilaahay idmo marka sidaas baa anaga imika adila socodsiin karnaa waxyaabaha ka socda golaha imika waa sidaa waxa uu sidoo kale dhanka kale uu ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu kaga qayb galayay wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana xildhibaanka hadaladiisi ka mid ahaa 2012 oo golaha wakiilada laftiisa ayaa warqadii aan lagu ama go'aankii lagu ansixiyay in aan lala hadlinba muxuu ahaa koonfur iyo shirarkoodana laga qayb gelin madaxweynihii Axmed Maxamuud Siraayi oo kii naga codsaday in loo fasaxo inuu ka qayb galo sidaasna way dhacday waa loo fasaxay
marka xukuumaddii uunbaa gaar looga yeelay inay hawshaas iyadu qabato tanna iminka waxay daba joogtaa waa sidii oo kale marka horta xaq bay u leedahay xukuumaddu oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi inay ka qayb galaan shirka ay u arkaan inay maslaxadu ku jirto ummadda somaliland ama shacbiga somaliland iyagoo dee u raadinaya qadiyadoodii muhiimka ahayd ee muxuu ahaa inay madax bannaanaadaan iyo inay xaqoodii dib u soo ceshadaan waa wax dee laga maarmaana inay ka qayb galaan shirarkaas oo kale maadaama caalamkii oo dhan isaguna muxuu ahaa uu doonayay inuu arko natiijo ka soo baxda wadahadalkaas hase yeeshee iminka socdaalkan waxaan filayaa anigu shakhsiyan uma arko inaa wixii lasoo afjarayo ama go-aan laga gaadhayo arrimaha masiiriga waxaa ka horeeya arrimihii hore lagu heshiiyey oo waxba laga qaban waayey oo xagga xukuumaddan federaalka ama koonfur ka socon waayey oo carqalado iyo mashaakil iyo dhibaatooyin u geysatay somaliland oo la garanayo taasoo heshiisyadii hore ka baxday in dee xaaladii lagu soo celiyo sidii markii hore ahayd oo aan la siyaasayn wixii dhaqaalaha oo waxyaabihii fara badan ee laga heshiin lahaa ama laga heshiiyeyba inaan la hirgeliyo oo sideedii lagu celiyo baa muhiima مر علي دعاء عمر شباش يوسف وباكا تلفزيونka bulsho magaalada Hargeysa Suldaan Ibrahim Xaaji Yuusuf oo kamid ah madax dhaqameedka reer Somaliland ayaa ka hadlay shirka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti Suldaan Ibrahim Nuur Xaaji Yuusuf Xaaji Cabdiraxmaan oo kamid ah madax dhaqameedka reer Somaliland ayaa ka hadlay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee maanta uga furmay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaanu suldaanku sheegay in wada hadalladaasi ay ku soo beegmeen waqti munaasib ah horta wada hadaladani waa wada hadallo mar hore bilowday oo xukuumadihii farmaajo ka horeeyay ama iyo tiin maxaan ku madaxweyne Muuse Biixi ka horeeyay Somaliland sida maxaan ku Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo Xasan Sheekh ayaa wada hadallada bilaabay sida runtii wada hadalladu aad bay muhiim ugu tahay arrimahan kala go'a Soomaaliya iyo Somaliland waxaana muhiim ah in la wada hadlo oo lagu garnaqsado miiska wada hadalka si kastaba arrintu ha u dhacday in laga wada hadlo labada dal ka wada hadlaan wixii danahooda ah ama sidii ay maaragtay arrimahooda miiska wada hadalka ugu xalin lahaayeen uguna garnaqsan lahaayeen ayaa muhiim ah runtii anigu waan soo dhaweynayaa oo waxaan u arkaa arrintaas arrin munaasib ah waqtigeediina joogta horena u socotay oo dee processkeedii horena iyo keeda dambeba uu halkeedii marayo sida runtii madaxweynuhu markii arrintan lagu marti qaaday ama looga yeedhay waddanka Djibouti oo hawshan maxaan ku martigeliyey processkii loo baahnaa wuu maray oo waxa uu markiiba la tashaday ama wax ka ogeysiiyey dadkii ciddii ay markaa qusaysay feerastii ay qusaysay ugu horeyn oo ahaa labada xisbi qaran waxa kale oo la arrintaas kala tashaday oo iyadana uu ka wargeliyey golayaashiisii qaranka iyo maxaan ku raahday xukuumaddiisiiba runtii ragga uu sidaan maqlay amba baxaya ama raacaya madaxweynahana waa rag sida madaxweynahaba uu la xijecel dalka uga leeyahay iyaguna la xijecel weyn dalka ugu leh Suldaan Ibrahim Nuur Xaaji Yuusuf Xaaji Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka hadlay khilaaf muran dhuleed oo muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa magaalada Hargeysa dhulkaas oo la sheegay inay isku haystaan qoyska madaxweynaha Somaliland iyo qoysas kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waa astaan qaran muddo dheer baanay beertani hawsheedu taagnayd marba in waqti badan oo madaxweynuhu shacbiga kamid ahaa oo nin shacbi ahaa baa jirtay haddii beertan lagu haysto oo ay beertan hawsheedu la isku haysto maalintaasay habooneyd in meediyaha lala soo fadhiisto oo laga hadlo oo wixii kasta oo beerta ay nimankaa sheeganaya ee ku haystaa ay ugu suurtagelayso inay xaqoodii ku helaan
wadooyin badan ay maraan baa yaa jirtay markuu shicibka laakiin maanta wuxuu baanu arkayaa cambaarayn iyo dhaleecayn la dhaleecaynayo madaxweynahana waxaan leeyahay waa astaan qaran ee maanta maaha shakhsi ama maaha dee qof maaragtay ku habboon erayadan oo kale ama dhaqankan oo kale in loola yimaado waxaan leeyahay ha laga waantoobo astaanta qaranka in aflagaado iyo fadeexad iyo xumaan dee kolba loola soo fadhiisto midiyaha tan kale ee dadku ku dhaawacmeen horta ilaahay ha u boqadhayo dadkii ku dhaawacmay maxaan ku rabshadii maalintii dhaweyd soo dhacday sidaan anigu warka ku hayo dee dhul la isku haysta dhulka uma arkee waxaan warka ku hayaa in dhisme laga dhisayey iyadoo meesha dhismaha laga mamnuucay dabeeta maayarka iyo ciidan uu wataa ay tegeen dabeeta halkaa ay rabshadii ugu dambeyn suldaan ibraahim nuur ayaa ka hadlay mudaharaad maalmihii u dambeeyey ka dhacayay dalka jabuuti waxaanu suldaanku bulshada reer jabuuti ugu baaqay inay joojiyaan mudaharaadka islamarkaasina ay ilaashadaan dowladnimadooda dadka reer jabuuti marka hore waan u ducaynayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu arrintooda wanaag iyo islaax ku dhameeyo marka labaad dadka reer jabuuti anigu ma aaminsani dad dhibaato badani ay maanta dhex taalo waxaan u arkaa inay waxaan dad aan reer jabuuti ahayn oo aanay arrintani qusaynin ay buunbuuninayaan dadka reer jabuuti waa dad dhaqan leh waa dad muraajaca leh oo meelaha ku noqdaan leh waa dad maxaan ku rahday ilbaxa waa dad aanan uga baqanahayn inay xallin kari waayaan hawlaha dhexdooda yimaada markaa waxaan anigu leeyahay dadka reer jabuuti waa dad isku filan oo xallisan kara arrimahooda mana u baahnaa cid maartay faragelisa iyo cid hawshooda dee baacbaacisa maxamed deeq ismaaciil xaashi telefishinka bulsho magaalada hargeysa culimada magaalada jawhar ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka bilaal oo laga dhisayo magaalada jawhar faahfaahin warkaasi ku saabsan waxa magaalada jawhar nooga soo diray yuslim maxamed axmed wax kastoo aad baxsanayso waxa ugu qayr badan inaad ku bixiso beedka allah masjidul bilaal magaalada jawhar waxaa maanta u bilaabatay wejigii koowaad ee shubka waxaana sidoo kale ka marneen in dhisida masjidka ka qayb qaadanayaan dad alle dartiis xoogooda ugu sadaqaynayaan dhisida masjidka culimada masjidul bilaal ayaa muxsiniinta dunida dacaladeeda meel walba ay ka joogaan ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhisida masjidul bilaal ee magaalada jawhar ilaaha mahad iska leh allihii subxaanahu wa tacaala na soo geersiiyey maanta ayadoo masaajidkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee dabaqii koowaad shubkiisa oo socdo allihii nafsad nagu soo geersiyey allahaasaa mahad iska leh waxaa kaloo mahad iska leh walaalaha beydka ilaahay soo geersiiyey dhulkii ka soo qaaday oo maanta heerkaan maraayo oo dabaqii koowaad maanta la shubaayo hantidooda iyo ku soo bixiyeen juhdigooda qaarna waxay ku soo bixiyeen dadkay soo dhiirigeliyeen qaarna fiidiyoyaalka ayay dad kale u direen qaarna hantidooda ayay dhowr mar noo soo direen ayagana mahad badan ayay leeyihiin waxaan leeyahay walaalahaas ha ku bishaaraystaano inay yihiin dad saalixiin ay yihiin rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicma almaalu fii yadin saalix maalaa nicmo badan gacan saalixad ilaahay geliyey gacanaan saalixad ahayn beedka ilaahay dhisi mayso waxna ka bixi mayso ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa guri janno ilaahayna oga dhiso sida nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam man banaa lilaahi beytan guri ilaahay dartii ninkii u dhiso bana allaahu lahu miluhu fi ljanna mid lamid ayuu ilaahay u dhisaa wuri jannada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed iyo kuwa kale oo muslimiinta ah oo khayrkan iyo wanaaggan ka qayb qaatay ilaahay nicmo adduunye maca aakhira allah siiyo lan tanaalu albirra xataa tunfiquu mima tuxibbuun wamaa tunfiquu min shayin fa ina allaha bihi caliim alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah mahad iskale oo noo soo ogolaaday inay beydkan u istaagno beydkan u istaagno ilahay noo soo ogolaaday mahad iskale mahaddaas ilaahale midda kale waxaa mahad u sugnaatay dadka muxsiniinta ah meel kastoo dunida ka joogaan gaar ahaan waxaan aad u ammaanayaa magaalada oon degannahay gaar ahaan jowhar dadka degan oo muxsiniinta ah insha allah iyagana waa ammaanaya insha allah ilaahay iyagana jaza fara badan allah ka siiyo jaza fara badan allah ka siiyo iyagana awlaadooda iyo
zoojooyinkooda allah u xifaadeeyo marka insha allah mar kasta waxaan u taagan tihiin ina beydkan wax ka qabataan ilaahay yani karaame insha allah midda kale dadka muslimiinta oo degan dibaddana iyagana ilaahay waxaan ugu baryaynaa maadaama ay joogaan meel gaala ah oo culays u jiro waxaa sii jiro cuduradaas inuu ilaahay ka amaaneeyo cuduradaas inuu ilaahay ka badbaadiyo inta muslimiin ilaahay ka badbaadiyo inta gaala ah oo ilaahay ugu talagalay inuu soo hanuunayso inuu ilaahay ku soo hanuuniyo بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii 6 2020 maalin axad ah waxaan joognaa masjidul bilaal degmada Jowhar oo hadda shaqadiisa meel fiican marayso alxamdulillah waa u jeedin maanta waxa la shubayaa waa qaybtii dhexe hablaha ku tukanayeen kadibna waxa la gudbi rabaa ilaa jira qaybtii oo dhexe oo labada dabaq kala goynaysa hadda loo gudbi rabaa waa u jeedin dhinacan kale waxa ka socda waa u jeedin boosneeradii shub ayaa ka socda waa u jeedin alxamdulillah in alle intii wax soo dhiibatay oo sadaqa jaarin waa fursad waa beed ilaahay waxa la dhisayo beedkan ilaahay ninkii dhisan ilaahay yawmal qiyaamo ilaahay waxa uu dhisayo beedkiisa kamid ah ayuu ilaahay uu dhisayaa in alle intii wax soo dhiibatay ajri xasan Allah ka siiyo waxaad ogaanaysiin nin walbaba oo wax soo dhiibtay in meeshaas la gelinayo sida u jeedin hata waxa noo yaalo intaas soo shamiita noo yaalo saaka lagu matashaneenin nin walba muxsiniin ah keensadee wuxuu leeyahay haleegaga taro wixii kale soo gaaro gacantan saalaxadan uu soo dhace wixiina waa in la gelinayaa hal loor shamiita ah waa $9 qof waxay ka dhibaysa malahan maanta waxa qasaaray ninkii beetaas ilaahay asoo awoodo hal kiiso shamiito oo $9 joogo asoo awoodo ilaahay siiyay beedkaas ilaahay maanta ku tabarucay way ama kashay way ninkaas maanta qasaaray fursad waaye walaalaha muslimiinta meel alle meesha joogan waxaan ka codsanaynaa ugu baaqeynaa soo gaarsiinayna fariina naga ah inay beedkaas ilaahay wax ku soo darsadaan Yusni Maxamed Ahmed Bulsho TV magaalada Jowhar waa tahay daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay war waxaan idinka haynay deegaanada Soomaalidu degtay iyo daafaha caalamka intiisa kale warkana waxa idin la socodsiinayay aniga Maxamed Daaq Ismaaciil Xaashi tan iyo intaan ku kulmi doono warkan war lamida waa aniga iyo howlwadeenada kala duwan ee telefishinka Bulsho ee gala qayb qaatay diyaarinta iyo isku dubaridka warka oo idinkaga tagaya sidaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh bushaaraan idiin hayaaye bulshooy idinkuna bilkhayr dhaha saliidda baabuurta adnok soo dhowow dadweynow saliid la ysku raaco tayadeedu sarrayso sumcad iyo ammaan ku leh samayskeeda asalka ah waa saliidda adnok waa saliid loo bogay waa saliidda ugu habboon ee baabuurta loo adeegsado saliiddan muddadii anugu ahay injineerka geerashka geerashbacadka la yidhaah baabuurta Djibouti u baxday dhammaantoodna inta badan 80% iyadaa loo isticmaalaa tayadooduna aad bay u fiican tahay marka waa saliid tayo leh aadna u wanaagsan saliiddan oo ah saliidda baabuurta lagu shubo noocii ugu tayada sarreeyey saliiddan waxaa la yidhaahdaa adnog waxaa samaysa sharikadda la yidhaahdo Abu Dhabi International Oil Company oo sharikadda kaliya imaaraadku leeyahay saliidahani kulligood wadatay ay leeyihiin maxay ahaydeen saliidaha wax alaaliya waxaad uga baahatay saliid oo tayo leh ayaad ugu soo hagaagaysaa Almis General Trading adnog ayaad ugu soo hagaagaysaa waxa ku keentay oo kula diyaar ah shirkadda Almis General Trading Company hamoogaani saliidda loo bogay adnog aan ku tilmaamay haddaba shirkadda Almis General Trading Company waxay ku taallaa xaafadda 150ka ka soo horjeedka aadan 19 wixii faahfaahin kala soo xidhiir telefoonka 4444 hamogaanin saliidda loo bogay adnog Oasis Unique Healing Approach shirkadda dawooyinka dabiiciga ee Formula 10
waxay ku haysaa dawooyin kala duwan oo u samaysan dhammaan cudurrada iyo cilladaha ku dhaca jirka bini'aadamka. Dawooyinka shirkadu ku hayso waxaa ka mid ah dawooyinka gaastirida, babaasirta, infekshanka, dawooyin waxtar buuxda u leh cudurrada maqaarka, cudurrada lafaha iyo iskuusyada. waxaa kaloo ay shirkadu ku haysaa dawooyin u wanaagsan burooyinka iyo fiixaha, noocyada kala duwan ee kansalka, dawooyinka u wanaagsan qanjidhada iyo dawooyin waxtar weyn u leh sixidda hormoonada, ilmo qaadista iyo ka hortagga ilmo soo dilanka. qofka si saxda ah u qaata dawooyinka shirkadda Formula 10 ee talooyinka la socda si mas'uul ah u raaca, ilaahayna la kaashada waxa hubaal ah inaanu helaynin dawooyin uga waxtar badan cudurkiisa. bismillaahi raxmaani raxiim. walaal magacaygu waa Maka Saleebaan Cabdilaahi, anigoo xanuunkayga iniga waramaya. dhakhaatiirta Soomaaliland in badan u tagay, jidhka oo dhan bay xanuuni jiray, kacatiinkan kari waayay, jidhkaygu culays buu ahaa, xubnahayga waan qaadi kari waayay jiray. dhakhaatiirteennana in badan baan la kulmay, wallaahi wax dawo oo hagaagsan kalamaan kulmin, caafimaad hagaagsan kamaan helin. sidaan u warwareegayay ayaan Cabdirasaaq TV-ga ka daawaday, dabadeed waan u imiday. wallaahi dawadiisi aad iyo aad ayaan ugu ladnaaday. waxaan lahaa tayroon, waxaan lahaa gaastari kacsan, agfashan kacsan, siday dhakhaatiirtu igu sheegeen. alxamdulilah rabbilcaalamiin, maanta waan ka fiicanahay, waan kacayaa, waan ordayaa, waan fiicanahay, waan shaqaysan karayaa. noloshaba mar baan ka dhici gaadhay, kolkaad kici kari weydo, markaad xubnahaaga waxba ku qabsan kari weydo, masarka madaxa lagu xidhaa ugu yaro waan xidhan kari waayey, salaada allahu akbarta dhagahaygaad waan gaadhsiin kari waayey gacmahayga. ilaahay baa mahadle. doctor Cabdirasaaq intii aan la kulmay ee dawadiisa qaatay, aad iyo aad baan ugu ladnaaday. 3 bilood baan soo qaatay, dabadeed waan ku soo noqday jawaabtii, wuxuu igula taliyay inaan 3 kalena qaato. marka walaalahayga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa shirkadda Formula 10 dawadeeda inay la xiriiraan doctor Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe, ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo. dawadu waa sababta oo ilaahay baa mahad iska leh. kolka walaalahay sidaasaan ugu baaqayaa, oo ugu ladnaaday, oo ugu bogsaday. bismillaah, magacaygu waa Faahad Xaaji Xasan Axmed. waxay xanuunaan fadhiistay, ma kici jirin, waan fadhiistay, gurguurad ma lahayn, bari kuma socon jirin, waa la soo toosin jiray, waa maxay tahay, waa qof la soo toosiyaan ahaa, aan istuwi karaynin. alxamdulillaah rabbil caalamiin. dhakhtarro fara badan waa maxay tahay waan u tegay, ilaa 30 sano waa ku wareegayay. Burco waa dhameeyay, Hargeysa waa dhameeyay. maxay tahay aad iyo aad baan dhakhaatiirta ugu laba noqday. Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe ayaan u imi, 3 bilood ayaan dawadiisa qaatay. maasha Allah tabaarakallah, waan ku fiicnaaday, waan ku roonaaday. aad iyo aad baan dawo uga helay, ilaahay iga siiyey. alxamdulillaah rabbil caalamiin. xanuunka waxaa xanuunayay fiix, waa la igu sheegay. macdanta way xanuunaysay, sanka midigta, gacanta midigta way xidhnaa, kama neefsan kari jirin. fiixo adigu aad buurbuur jirkayga badan baa, jirkayga buurbuur badan baan ka dareemayay. maxay tahay barar badan baan dareemayay, dhul badan oo xidhan baan dareemayay, gaastarida xanuunka la sheega baan dareemayay. alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad iyo aad bay uga daweysay. bararkii waa iga dhacay, wixii jir buurbuur jirkayga ku jiray iyo fiixo way iga furfurmeen, way iga baabeen. gaastarida way iga baabaaday. madax xanuunkii oo kale maxay tahay hayay way iga baay. jir xanuunkii, lafa xanuunkii, hurdo la'aantii oo kale maxay tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. aad xanuuno badan baa ilaahay iga furfuray subxaana wa tacaala. walaalahayga maxay tahay meel kasta jooga ee dhakhtarrada maxay tahay ay dawada ka cunayaan, ku wareegeen, ilaahay subxaana wa tacaala ku caafiyey, isagu ku caafiyey. kii tabanaya inaanu maxay tahay caafimaad ka helin ee xanuunsanayo weli xanuunada aan sheegay jirkooda ay ka dareemayaana, insha Allah bilmillaahi kariin waxaan kula dardaarmi lahaa dhakhtarka ilaahay dawo iga siiyey Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe inay la xiriiraan, insha Allah aad ugu soo degdegaan, dawadiisa qaataan. sida ilaahay noogu caafiyey iyagana ilaahay ugu caafiyo, kuwa ka qaatay iyo kuwa ku soo socdaba insha Allah bilmillaahi kariin khayr baan rajeynaya.
xarunta shirkadda Formula 10 waxay ku taallaa wadada yar ee isku xidha Hotel Cali Jirde iyo taliska guud ee ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Somaliland ama kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. Unique Healing Abroad. bismillaahi raxmaani raxiim maansadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa han ku tiigsi. hanku waa inaad hankaad leedahay amaba waxaad hiigsanayso eed meel ku gaadho aad rabto. tiigsina waxa weeyaan waa iyadiyo la gaadhayo. waxay soo baxday bishan aynu ku jirnay 8aad sanadkan 2015. guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun dadaal la-aanta bulshada ka muuqata iyo xumaanta qabyaalada iyo hoggaan xumada. waxay ku bilaabataa sidan: dhaqankaygu waa hodan, diin baa hoggaan u ah, hal ilaah ayaa jira, cirka kaa hadoodilay, carre edegna waa hee, halkii aan ku ababiyo ciidaydii hooyo waa lama huraantii. hanti waxaan u leeyahay hadal iyo aftahanimo, hooyaalay gaba iyo hees iyo tix baanahay, habeen iyo nin liitaa dhaqankiisa hiifee, afka inaan ka haajiro way iskala hanweynahay. jirashada ku hirashada, higsashada ku bogashada, hanashada fartaydiyo hawshiyo dhiskeedana cidna kuma halayn karo. xiisaha haloosiga, hamiga iyo kalgacalada, hawraarta baanaha, haasaawaheediyo hogga gabayga loo dayo, hal abuuridiisaba waan u soo hiloobaa, habeenkoo barhkii tegay ayaan hella curiya. ma habsaamo kama hadho, ma huleelo kama tago, ma haleeyo mana naco, ma hagrado ma hiil yari, ma hungeeyo mana hado, hadba kaabidiisiyo higaadiisa maba dhigo. afka wou halgamayaa hadduu erey ka soo hadho, isagaan huwanayaa, marna ubad ku habayaa, marna geel ku horayaa, marna hala ku jirayaa, marna hayin ku rarayaa, marna hara ku qodayaa, marna harar ku tolayaa, marna hoo ku tarayaa, marna hiil ku gelayaa. inta hebel abwaaniyo hal abuurku joogaan, inta hibo la sheegtiyo hoodadu irmaan tahay, inta qoro habboon iyo halmiceedku buuxaan, inta hooyo sharaf loo ubadkeeda hawraar hoobay ku koriso heesa ay nooshahay, afku wuu hirgelayaa. afartaa habeeye xayirow hadhuubkiyo ila qaba balhaamaha, suugaanta ila hubi heestayda faallee, halka iga qalloocdiyo hay qarin dhaliishee, harahayga ii sheeg ereyada higaad saar, habdhaca iyo luuqdiyo balqiyaas humaagyada, sida geela haaneed, sida faraska heensee, sida awrka heerye, sida dhiisha heemaar, adna heella daanshood u hilaac sidii roob, iga bii haraadko, sida dhoolka ii hoor, sida ubaxa ii hawr, gobonnimo ku haanshaar, huga xidho hidaha qaad, waxaa tahay hubkayge nin hinaasa boodiyo, hebelada waxbiiyiyo haan raawayaashiyo hay jabin aqoongaab. aniguna haddaan ahay hal abuurkii maansada, hubka waxaan u qaataa horarka iyo waraabaha, inaan beesha kaga hiro waxaan hees u curiyaa, hodantiyo barwaaqada sidaan kuugu helilaa, inaan kuugu howlgalo dadka waxaan u haystaa, inaan haybi wadarayn balse himiladoodiyo aragtida hagaysiyo hanku inuu midayn karo. dalna waxaan u haystaa inuu lama huraan yahay, hanti yahay macaan yahay, hooy iyo dugsoon yahay. qaran waxaa haligi karaa waa qabyaalad huurtee, beeshu weli kamay hadhin wixii haanka gooyiyo holiciyo qabiilkii dilay horumarkeedo, halkan maanta naalnaa weli waa habaaskii halasuhu ku yuururay. horalee dadkaygow halis cudurkii kuu galay, kaa dilay hankaagii, haaraamay sharaftii, xayadaadii hoos dhigay, kaa helay xishoodkii, kaa heeray samihii ee horumarkaagiyo kaa jaray hufnaantii, halkii laga daweyn laa waad haysataan weli. dadka cadowgii heeriyo dalka kii haleeyiyo, reer hebella muu dhiman, qoloqoladii may hadhin, weli haybtii may goyn, iyo faankii harabsigu sidiibaa hanaankii sharciga iyo hanuunkii jifo uga hormarisaan, sidiibaa hagaagii adu hiifaysaanood xumo ugu haliishaan, sidiibaa horweyntii iyo halaha kuu dhala horarkii u maashaa, dadka oo faca oo hayaan galay oo guusha haybsaday, sidiibaa u hurudaan habaaska iyo boodhkii, halkii u jiiftaan adigoo kun jeer hadhay oo hoogay oo jabay howlyari u gamaadaan.
hay hor alle dadkaygow idinkaa u haystee dunidani halbaadiya hayin dunidani halbaadiya hayin maaha dhagal nugul hayalsami umay dhalan halgan bay ku dhaqantaa hami bay ku dhiiqdaa garashay ku hidisaa gudashay ku hodantaa heshiis bay ku darartaa hadhuubkeedu waa ficil faraskeedu waa hawl nin baqaa ma halabsado halyey baana laylyada iyo gaari aan hadhin heensaheedu waa samir hirasho iyo raadcayn hankutiigsi iyo orod hal abuurid iyo curin hilinkeedu waa buur hogoglaaga iyo bohol haadaama iyo qow iyo hayjad oonyaal hoggaankeedu waa qalin hooggeeda qoro oo hadimooyinkeeda badi hogatuskeediyo guusheeda hago oo qofka halasaheediyo halowgeedu leefaa heensada liskeede nin hakaday ma laasimo dadka waxaa habayn kara oo nolol habboon iyo guryo samo u hoyn kara hanad garasho dheer iyo waa hoggaan aqoon loo ka damqada hantaaqada ummadiisa haysiyo gaajada iyo hooge ma hubsada ma fiirsade danta uma hanuunsame qolo iyo tol haybsade sharci uma hoggaansame sina uma hagaagsane weligii halkuma same gorofkeenna heensade iyo dhuuni halabsade hantideenna jalamsada hor ilaahay weersame ma la haysan karaya banka soo hawaawiye geyigeenna haawiye dhalinteenna haajiray habeen qudhama baajiye dhirta holaca lagu shiday hadhacyada la deebiyey dhuxulaysta kama hire hor ilaahay weersame ma la haysan karayaa haanhaanu kala rare habraceelka keensade naxli iyo sharhuursade cod siduu u helila hubu soo samaysto dalka holac ka shidi kara oo halyeeyadaydiyo da'yartiyo haweenkaba dhiigooda huri kara hor ilaahay weersame BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PayC والسلام عليكم السلام صوفري ورياه ورياه ملعامده هدي مدرسته لوغا فرانيو مالين walba waxaasan hays oo heed ciyaal meel wax dhigan waxagay ku dhigtaa sootii la xiray meelkii wax ka dhigan jiray madrasadii oo miyaanad ogeyn shirkadda Somtel inay keentay adeeg la yiraahdo subcis oo quraanka ardaydu iyagoo guryahooda jooga ay ka baranayaan oo ka dhiganayaan oo ka subcinayaan oo markaa waa xagii waa adeega subciso waa adeeg cusub ay keentay shirkadda Somtel oo caruurtu darasada sidoodii wax uga baranayaan quraanka oo ay kala subcinayaan ardaydooda laga helayaa waxaas ma lama haysteen hadaan ka helayni waxa laga helaa xarun kasta oo ay leedahay shirkadda Somtel. Somtel samada sare iyo sentraalka guud iyo saldhigeena weyn iyo sariirta aad ku hurudiyo sarifka iyo lacagaha suuqa caalamka oo idil sudan maanta weeyaan waxay keentay saakana adeegan sugayno si weyn loogu baahnaa waa adeega subcis waa adeeg u sahlaya ama isku xidhaya macallimiinta madrasadaha iyo ardayda oo xaafadahoodii jooga inay quraanka bartaan halkooda iyagoo joogana ay ka subciyaan quraanka kuna fahmaan. waxaa kaloo shirkadda Somtel ay ku soo kordhisay adeega Ar-Risaala oo aad ka baranayso dhammaan shareecada diinta Islaamka adigoo garaacaya lambarka 228. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo e-Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshee. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida. haddaba sidee buu u shaqaynayaa adeegani? aniga ayaa kuu sharaxaya. marka hore macmil lacagtaada ku soo shuba e-Dahab dabadeed garaac xidig 7 eber 4 gees ka dooro dir xawaalaad dabadeed geli
magaca qofka loo diraha oo dhammaystiran kadibna geli taleefanka qofka aad u diraysid oo isaguna dhammaystiran intaasi ka bacdi macmiil geli magaalada amabase waddanka aad lacagta u diraysid dabadeed mar kale ayaad gelin doontaa xaddiga lacageed ee aad u diraysid qofka dooro khidmadda cidda laga jarayo ma adiga ayaa laga jarayaa mise lacagta ayaa laga jari doonaa ugu dambayna hubi macluumaadka qofka aad lacagta u diraysid dabadeedna geli bin nambarkaaga isticmaal adeegan casriga ee fudud ee shirkadda dahabshiil iyo adeega idahab wixii faahfaahin intaasi dheer la xidhiidh telefonka somtel hal 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 iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa inin raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aankii